xidig waliba qabcireedkiisa koox ayuu ku soo baxayaa malaha hadda ayaa la dhihi karaaba Raheem Sterling waa uu doortay kooxdii ka caawin lahayd inuu noqdo ku guulaysiga abaalmarinta xidignimada dunida ee Ballon d'Or oona ah riya ku dhex nool laacib kasta. oradheerihii ugu dambayntii kooxdiisa Man City waa ay aqbashay wadaxaajoodkii loo geed fadhiistay oo kabiirkan Chelsea ay ku doonaysayba inay ku geyso galbeedka London ka oo ku kacayay 45 milyan oo lagu daray 10 milyan oo dheeri ah. macallimu Thomas Tuchel isagana horay ayuu wada hadallo toosa ula yeeshay laacibkani reer England waxaana uu ku qanciyayba in Chelsea ay tahay halkii uu ku noqon lahaa guulaysta dhaba. xidigani Ingiriiska ah ayaa Man City u dhaliyay ilaa iyo 130 gool 337 kulan oo u saftay isagoona kooxda ka caawiyay ku guulaysiga 4 koob oo Premier League ah 4 League Cup iyo 1 FA Cup. haddana waxaa la filayaa in xogweynayaasha galbeedka London uu qalinka ugu duugo heshiis ku eg ilaa iyo 2027 oo lagu daray ikhtiyaar sanad kale. Real Madrid wararkeedana waxa ay sheegayaan iyadana in ay ku guulaysatayba in Vinicius Junior ay ku qanciso inuu sii joogo Santiago Bernabeu iyo caasimadda Spain ee Madrid ilaa iyo 2027. Vinicius Junior waxa la dhihi karaa waqti xaadirkan waaba da'yarka ugu wanaagsan koonkan waana midka u sahlay in Real ay noqoto ku guulaysiga Championska Yurub. heshiiskan Fabrizio Romano waxa uu sheegayaa in dhowaan si rasmi ah loogu dhawaaqi doono. difaacii dabaraculayntiisa ay ku daashay Arsenal Lisandro Martinez isna waxay wararka sheegayaanba inuusan doonaynin ka mid noqoshada kooxda ka dhisan waqooyiga London taa badalkeedana uu danaynayaba inuu u soo weecdo xagga iyo magaalada Manchester. waxaana aad u xiisaynaysa Manchester United oo u aragtaba inuu yahay laacib wax badan ku soo kordhi kara kooxda ku ciyaarta maslaxa riyada. United ayaana la filayaa laacibkan inay ka gudbin doonto dalab gaaraya 50 milyan waxaana isagana kooxdiisa Ajax uu ku cadaadinaya inay fasaxaan. haddii taa ay dhici weysana waxay wararka tilmaamayaan in gabi ahaanba uu ka baaqsan doono inuu tababarka aado. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixinadan ilaa iyo dhammaadkooda. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.